wardegdega subax wanaagsan daawadayaal waxaan filayaa inaad nabad qabtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaki aroortii waxay howlgallo ballaaran ay ku galeen deegaano hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe nala daawada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo weerar culus ku qaaday fariisimadii nabadgelyadu ay kaga dhuumaalaysanayeen tuulooyin hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhowr jaha ka weeraray tuulooyin hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe subaxnimadan ciidanku waxa ay sidoo kale ay sameeyeen howlgallo ballaaran iyaga oo dhowr fariisim oo ku yaala degmada aadan yabaal ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo kooxaha qawaarij al-shabaab saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay in saaka ciidamada howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen dhowr tuulo oo hoos yimaada deegaanka Cali Fool dheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale ciidamada howlgallada waxa ay ka sameeyeen deegaano u dhaxeeya gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waana deegaanada kala ah Mabaax iyo Muqliga halkaas oo ciidanku ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo kooxaha qawaarij al-shabaab guud ahaan gobolada dalka qaasatan Shabeellaha Dhexe ciidanku saaka waxa ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan wargaadi ayaa kamid ah cutubyo aad u tiro badan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaanka wargaadi ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ugu xooganaa oo lagula dagaalamayo kooxaha nabadgelyada al-shabaab sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo ballaaran waxa iyaguna ay ka wadaan degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo lagu tuhunsan yahay inay joogaan koox ka tirsan qawaarij al-shabaab Shabeellaha Dhexe ciidanku waxa ay ka wadaan gulufkii ugu xooganaa oo ka dhana kooxaha nabadgelyada al-shabaab iyadoo ciidanka xoogga dalka ay saakay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen degmada aadan yabaal ugu yaraan sida aan xogta ku helnay waxaa howlgalkii saaka lagu dilay 8 dhagar qabo oo ka tirsan kooxda al-shabaab waxayna ciidanku gacanta ku soo dhigeen hub iyo saanado military oo ka caray nabadgelyada saad muuqaaladeena baad ku aragteen ciidanku waxa ay weerareen dhowr difaac oo nabadgelyadu ku lahaayeen tuulooyin hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay sameeyeen howlgallo xoogan oo lagu bartilmaameedsaday goobo badan oo ay ku dhuumaalaysanayaan nabadgelyada al-shabaab guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Masaajid Cali Guduud waxa ay kamid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada ballaaran oo lagu baacsanayo nabadgelyada al-shabaab waxayna ciidanku guud ahaanba ay cagta mariyeen fariisimo dhowr ah oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayeen nabadgelyada al-shabaab wararka ayaa sidoo kale waxa ay ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay saaka dhowr gaadiid ah ay tuulooyin hoostaga degmada aadan yabaal ay kaga qabsadeen kooxaha nabadgelyada al-shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo haatan ay la hadlayo ay ku sii siqayaan goobo hor leh oo lagu tuhunsan yahay inay joogaan nabadgelyada al-shabaab muuqaaladaas ku aragteen waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gaaf wareegaya guud ahaan deegaanadii saaka ciidamada howlgallada ay ka sameeyeen sidoo kale howlgallo sidaas la mid ah ayaa waxa ay ka soconayaan Shabeellaha Hoose qaasatan jilib marka gandarsho ilaa dhanaane maalmahanba si weyn ayaanu faahfaahin uga bixinay arintaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa nabad sugidda sirdoonka qaranka iyo ciidanka deegaanka ayaa si wada jira waxay howlgallo ballaaran uga wadaan tuulooyin deegaano hoostaga degmooyinka jilib marka gandarsho ilaa dhanaane saraakiishu waxay inoo xaqiijiyeen in saakay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi ay ka wadaan howlgallo xoogan oo lagu baacsanayo kooxaha qawaarij al-shabaab sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa cagta mariyay dhowr goobood oo ku yaala deegaanada gandarsho dhanaane ilaa jilib marka halkaas ay joogaan nabadgelyada al-shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalka horkacaya waxa kamid ah Taliye Maxamed Sheekh oo kamid ah saraakiisha ciidanka gorgor waxa uu inoo sheegay in ciidanku ay haatanba ay goobo dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ka wadaan howlgalladii ugu xooganaa oo lagu baacsanayo kooxaha nabadgelyada al-shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay maalmahanba ay si xawliya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose uga wadeen howlgallo ka dhan nabadgelyada howlgallo ka dhan kooxaha qawaarij al-shabaab gandarsho dhanaane ilaa jilib marka waa deegaano hoostaga degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa la wareegay guud ahaan deegaanadaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka waxaana ciidanku sidoo kale ay garabsanayeen ciidanka nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya waxayna halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka dhana kooxaha qawaarij al-shabaab iyadoo ciidanka guud ahaanba tuulooyinkaasi ay gacanta ku dhigeen wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ka wadaan dhowr tuulo oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose buulanaagay iyo tuulooyin ku dhow ay ciidanku howlgallada ay ka wadaan buulanaagay waxay hoos tagtaa degmada marka iyadoona
sidoo kale ay ku taala wadada dheer ee jubbooyinka qaasatan jubbada hoose ee si toos u gashay magaalada Kismaayo. ciidanku waxa ay ka wadaan dhaqaaqyo xoogan oo lagu dagaalamayo kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab, waxayna sidoo kale ay ciidanku dhowr goobood oo ka tirsan degmada marka hoos yimaada qaasatan Buulanaagi iyo tuulooyin ku dhow ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayay khawaarij Al-Shabaab. Shabeellaha Hoose waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada ballaaran ee lagu baacsanayo kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. ciidamaduna howlgalladaasi waxay ka gaareen guul aad u weyn. markana haddaynu aadno deegaano dhaca gobolka Jubbada Hoose, warkaynu ka helayno deegaanka Janaayo Cabdalle iyo tuulooyin ku dhow ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi ay ka wadaan howlgalladii ugu ballaarnaa oo ay kula dagaalamayaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. Janaayo Cabdalle waxa ay ka mid tahay goobaha nabadiidku ay ku dhumaaleysanayaan, waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay tuulooyin hoostaga ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran. Janaayo Cabdalle iyo tuulooyin ku dhow ciidanka ayaa gacanta ku haya, balse tuulooyin ku dhow ay argagixisadu ku dhumaaleysanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay halkaasi ka sameeyeen howlgallo ballaaran oo lagula dagaalamayo kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. guud ahaan deegaanada jubbooyinka waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka ayaa sidoo kale dhowr goobood oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan nabadiidka Al-Shabaab waxa ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayo khawaarij Al-Shabaab. Shabeellaha Dhexe, jubbooyinka iyo Shabeellaha Hooseba waxaa si dardar uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. maalmahanba ciidanku waxa ay wadeen gulufyo kalena kooxaha khawaarij Al-Shabaab, waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gulufyadaasi ka gaareen guulo aad u waaweyn. markan haddaynu aadno deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Hiiraan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna waxa ay wadaan howlgallo xoogan oo lagu bartilmaameysanayo fariisimada kooxaha nabadiidka ay ku leeyihiin deegaanadaasi. taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa wuxuu u qudbeeyay cutubyo badan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan ciidanku ay isku diyaariyaan guluf kalena kooxaha khawaarij Al-Shabaab. taliyuhu wuxuu xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haatanba wadaan howlgalladii ugu dambeeyay ee lagu bartilmaameysanayo nabadiidka Al-Shabaab. taliyaha ayaa sidoo kale wuxuu xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maalmaha soo socda deegaano dhowr ah ay ku dhaqaaqi doonaan, isagoona sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanku ay gacanta ku dhigi doonaan degmooyinka Moqokuri iyo Maxaas, halkaas oo dhawaan ama dhowr bilood ka hor ay gacanta ku dhigeen kooxaha khawaarij Al-Shabaab. taliyaha ayaa sidoo kale wuxuu xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay abaabulkii ugu dambeeyay ka wadaan guud ahaan gobolada dalka, qaasatan gobolka Hiiraan. Hiiraanna wuxuu xusay inay ka bilaaban doonaan howlgallo xoogan oo lagula dagaalamayo kooxaha khawaarij Al-Shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalmahanba waxa ay wadeen howlgalladii ugu cuslaa oo lagula dagaalamayo nabadiidka, waxayna ciidanku deegaano dhowr ah ay ka xoreeyeen argagixisada Al-Shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Mudug waxa ay ka wadaan iyaguna howlgallo ballaaran. goobaha ciidanku ay howlgallada ay ka wadaan ay hoos yimaada gobolka Mudug waxaa ka mid ah deegaanka Duunlaaye iyo Cimaamad, iyo ciidanku halkaasi howlgallo ballaaran ay ka wadaan, iyo deegaanka Aboorey, waxayna ciidanku halkaasi ay dhaqdhaqaaqyo ay kaga wadaan goobo lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan nabadiidka Al-Shabaab. sidoo kale ciidanka ayaa waxay howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanka Qayacad, Bacadweyne iyo Camaara, halkaas oo ciidanku ay saakay howlgallo ballaaran oo lagula dagaalamayo kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab ay ka sameeyeen. guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya saakay howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale ciidanka xoogga dalka ayaa deegaano dhowr saakay waxay gacanta kaga dhigeen kooxaha nabadiidka Al-Shabaab. deegaanadaasina gadaal ayna kusoo sheegi doonaa. duqeymo kala duwan ayaa sidoo kale waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe, sidoo kale Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ayaa ciidanku duqeymo halkaas laga sameeyay. qaasatan waxaa duqeymahaasi sameeyay diyaaradaha dowladda Soomaaliya ka taageera dhanka cirka. sidoo kale waxaa laga sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Mudug duqeymo goobo ay ku dhumaaleysanayeen kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. daawadayaal, hadduu channelkeena kugu cusub yahay subscribe inoo saar. howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed channelkeena ayaad ka daawan doontaan. waa mahadsantihiin.